aan qiso idiin soo naqliyo oo siharo nin la yidhaahdo doctor tawfiiq alwaaci ayaa xikaayada soo naqliya inkastoo dadka aan baadhaanan hore u helin magaca kan laakiin waa nin say sheegayaan samura familiga samura familigu waa middle classka qabaa'ilka ka mid ah ee Japan waa qabaa'ilkii xaashiyada boqortooyada ku dhawaan jirtay ciidamada ahaan jiray Japan ilaa 150 sannadood buu cilaaqaad la lahaa waddankan Jarmalka la yiraahdo inta badanna saaxiibay hayeen in yar oo dagaalkii labaad buu xagga Ingiriiska Japan ku yara raaceen waxoogaa dagaalkii koowaad baan leeyahay waxoogaa dagaalka koowaad iyo gagaarkiisii ayay Japanisku xagga Ingiriiska mareen laakiin inta kale Jarmalkay saaxiib ahaan jireen dagaalkii u dambeeyayna la wada jabiyay waxay isku dayday Japan arday bay diratay la rabo inay wax ku soo bartaan waddankaasi ninkan magacan le baa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa Hamburg University buu tegey waxbarasho bilaabay waa group arday oo la soo diray waxaana loo soo diray aqoonta Germany in la soo raro Germany-na waa meelihii dee galbeedka hogaaminayay technology-giisa sideedaba technology-gu meelaha ugu badan oo ku faafay dee waddanka Jarmal baa ahaan jiray wuxuu leeyahay ardayga kani markaan master qaatay oo auto mechanics buu dhigtaa الميكانيكا markaan theory-yadii iyo bookskii iyo wixii ayay macmal bana geey waayeen buu yidhi theory uma loo dhigaa nadariyaad jaamacad iyo book iyo drawing iyo wax unbana lagu wadaa buu yidhi meel farsamaba waan arki waayey anna waxa iga go'an buu leeyahay inaan waddankii horu mariyo waddankana dee buuga ku horu marin maayo si aan yeelo waa inaan tala kala keenaa maalintii dambe ayaa waxaan arkay buu yidhi meel macrada oo injiino muxarrak injiinaya talyaaniga lagu iibinayo 2 horsepower dabeetana injiin baan baabayacayo mushaharkaygii oo dhan buu la qiimo noqday buu yidhi hal injiina baan mushaharkii siista habadii injiinka ahayd anigoo ku faraxsan oo qaadi karayla ayaan gurigaygii la tegay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi kani waa modelka haddaan ku guulaysto waxa kalena waan ku guulaysan doonaa injiinkii buu miiska saartay halkan rafkaan kala soo daadegay buu wixii buug lagu akhriyi jiray iyo wixii sawiro injiinka warrabay iyo wixii oo dhan waxaan ku tala galay buu yidhi injiinkaasi inaan furfuro bool kasta iyo bir kasta meel dhigo bir kasta sawiro sideeda u dhigo kala wada daadiyo kadibna aan dib isugu wada celin karo dabeetana aan mar kale ka shaqaysiin karo si xirfadi ku jirto xabad walba u sawiray mid walba meel u dhigay waday 3 maalmood bay igu qaadatay wuu yidhi inaan kala wada furfuro oo dabeetana dib u xidhxidho oo dabeetana kiciyo injiinkii waxaan ku guulaystay buu yidhi inuu kaco aad baan u farxay buu yidhi marka kaahinkii watay yani dhaqanka iyo hidaa iyo waxoodan in la ilaaliyo inagu intaynu diraawn bay lumaane kuwan la diray waxay iyagu Japan ku dartay kaahin xataa dhaqanka iyo diinta iyo waxaan u ilaaliyo la socda kaahinkii baan u yimi buu yidhi waxaan idhi buu yidhi maanta waan soo guulaystay maxaad samayso waxaan idhi buu yidhi waxaan soo furfuray hal injiina baan intaan midhmidh u kala tuuray oo meelaha dhigay ayaan dib u farsameeyey dabeetana dib baan u xidho waan ka shaqaysiiyey shaqo aad u fiican baad qabatay buu yidhi laakiin waan ku tijaabinayaa injiin mucatal oo kharibmay baan kuu keenayaa buu yidhi kaa haddaad ka shaqaysiiso markaasaynu wada hadlaynaa wuu baxay buu yidhi injiin kaluu ii keenay oo qariban furfurkaas buu yidhi waxa xun soo saar oo dabeetana samee injiinkii baan sawiray waa kala wada dhigdhigay midba meel baan dhigay 3 birood oo cunmay oo dhibaata gaadhay baan ka soo dhaxelay buu yidhi 3 birood baan dubbe iyo mubaradka fortune inta tagay birta marna la qaboojiyo marna la tumo ayaan soo tuntay buu yidhi 3 birood baan soo tuntay oo kuwiyo kala ah ayaan soo sameeyay buu yidhi dabeetana dib baan u xidhxidhay isna waan ka shaqaysiiyey tanna 10 cashay ugu qaadatay buu yidhi maalmaha uu shaqaynaya wuxuu leeyahay hal mara baan wax cunaa in yarna waan seexdaa inta kalena baan kuma dul fadhiyaa 10 maalmood bay tanna igu qaadatay buu yidhi inaan dhammeeyo iyana waan dhammeeyey dabeetana waxaan idhi buu yidhi waxa la yidhi buu yidhi master degree baad qaadatay waxaad gashaa doctorate
professorkayga sii wad buu yidhi may doctorkaa dooni maayo baan idhi buu yidhi jabaan baa isugaysa jabaan si aan wax uga noqdo injiinkan hadda gartay sida la isugu xidhxidhay dee birtiisa waa inaan samayn karaa birtiisa saan u samayn karana waa inaan warshadaha birta dhalaaliya tagaa kuwaana wax layskuma barayo shaqaale ka noqo xamaal baan bilaabay buu yidhi ka shaqeeya warshadahan birta warshadahan lagu dhalaaliyo ironka almuniyamka biraha warshadahan dhalaaliya ayuu xamaalnimo ka bilaabayo inuu cumaalintan dhuxusha ku gurtiyo waxaan inuu noqdo ka shaqeeyo 8 sannadood buu waxaa waday oo uu baranayay sida birta loo dhalaaliyo dhagaxa inta la soo qodo sida loo kala dhalaalin karo bir loona kadib buu noqday Nagasaki buu tagay boqorka maqlay ninkan iyo arrimuhu wado 5,000 pound buu soo diray buu boqorkii Japan oo leeyahay waxaad u baahantahay qalab soo siiso qalabkii warshad kaamil baan soo siistay buu yiri waxaan ku qaadabaan waay mushaharkaygii baan haddana uga dhigay buu yiri nooli dabeetana qalabkiisii buu la yimi Japan markaan imi baa la yidhi buu yiri boqorka raba inuu ku soo dhaweeyo ku yimaada may boqorka arki maayo buu anigoo aan qalab sidin muharrakaat anigoo sida mooyaane iima cundanta wali in boqor soo dhaweeyo warshadiisii yarayd buu rakibtay fortune-kiisii iyo birihiisii buu dhalaaliyay wixiisii buu waday muddo kadib 9 sannadood markuu rafanayay waqti ku dhadhow say sheegayaan ayuu wuxuu soo saaray injiinadii koowaad muddo markuu rafanayo ma 9 injiin buu soo saaray isagoo 9 injiin wata buu boqorkiisii la kulmay waxay dhahdaan waa gaalkani waa ninkii bilaabay ama raggii tiirarka u taagay industrialka maanta ay leedahay maxay Japan ay leedahay Japan reer galbeed inta ay u yimaadeen uguma deeq cilmiga loo wada reer miyigan atiiniya beerahan ka kaalayo technology-ga barta cid kuma oran laakiin iyaga u dhididay maxaan tan uga jeedaa qofka han kale waxa uu rabo uu xaqiijin karaa qofku hadduu han leeyahay ولذلك بقى إلهي قرآن كوحين ليه سيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بقى النبي قال ويري والصبر يعني إنه لشو عقبات بيلا ذي مركب كلها هم بعض يالنيسا معناه ما هو واحد قبطة بريح أنت هذا رقاقضون إنه يسوبه يسوي هجاج يسمعها 1000 مشكلة بقى كاهر إيمانية أنت أسوأ عرقلات بقى إيمانيسا لكن Soomaali hore maxay oran jireen wixii maxay ragna u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan yani hatta ninka reer biyiga Soomaaliyeed wuxuu rumaysanaa ninka waxa ninka la yiraahdo hadduu rabbigii ka hashado inaan mustaxiil jirin saas oo rumaysanaa yani inuu xaqiijin karo waxa uu doonayo macadka al-sunna oo qaab online wax looga barto adigoo dalka ama dibadda jooga waxyaalaha ka baran doonto waxa kamid ah barashada hikada barashada quraanka barashada xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam barashada ducooyinka iyo guud ahaan waxyaalaha ku tacalluqa shariicada islaamka al-sunna institute wax ka baro adigoo jooga dalka ama dibadda kuna baro adigoo jooga gurigaaga wixii faahfaahintaas dheeri kala xiriir lambarada iyo gmailada shashada ku qoran